warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warantay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ay shaacisay inay aqal gashay. Ilhaan ayaa barteeda Instagram ka soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub ee Tim Maynard. Tim ayaa hore u ahaa la taliyaha Ilhaan Cumar ee arrimaha siyaasadda. Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaan ku nahay nolosha, waa barako alxamdulillaah. ay Ilhaan Cumar ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka. xiriirka haasawa Ilhaan Cumar iyo Maynard ayaa soo shacbaxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogaan Maynard oo lagu magacaabo Beth Maynard oo 55 sano jir ah ay dalbatay furiin. Maynard ayaa haatan Ilhaan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada. Warbaahinta Fox News ayaa ku soo warantay in xaaska Maynard ay dalbatay furiin kadib markii ay tuhuntay in saygeeda uu xiriir jecel leeyahay Ilhaan Cumar. sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkii hore Ilhaan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore Axmed Xirsi. 3 caruur ayay isku dhaleen ayada iyo Axmed Xirsi. Xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqal galay Soomaaliya. xiriirkeena jacayl waxa uu ku burburay si aan soo kabasho lahayn. sidaas waxa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhaan. waxa Ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta waxayna maxkamadda weydiisatay in ay u ogolaato goob sharci waafaqsan oo si wada jir ah loogu hayo 3 cunug oo ay isku dhaleen. Cabdinajiib Maxamed Caanood, dalka TV, Muqdisho.